بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii waa su-aal aad iyo aad wajiih u ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan maskaxdeeda ku jirta arrintaas waana la wada sugayaa dadka Soomaaliyeed dibadda iyo gudub inta dhan way sugayaan dhamaantood waxaan filayaa ra'iisul wasaaraha soo socda hawsha hortaalla waa hawl ballaaran waa hawl la mid ah ama aan oran karno 14 ra'iisul wasaare oo laga soo bilaabo carto hawshii ay qaban waayeen inuu qabto ayaa hortaalla waxaan filayaa inuu kii 15aad asagu yahay Ali Khaliif Gallad markii laga soo tiriyo burburkii dawladda Soomaaliya ka bacdi wixii dhismay waa ra'iisul wasaare 15aad weeye 14 kii horeysay shaqadii ay qaban waayeen inuu ka soo baxa ayaa ummadda Soomaaliyeed ka sugaysaa dibadda iyo gudaba qodobadaas waxaa ugu weyn security-ga waddanka oo la xalliyo oo waddanka kala xiran uu isku furmo waddanka kala tegay inuu dib isugu soo laabto oo dib u heshiisiintii laga shaqeeyo in cadaaladii iyo isla xisaabtankii dowladnimo inuu soo noqdo waxaa kaloo sii dheer in dastuurkii oo qabyaahi uu meesha yaallo in aan dib loogu noqon doorasho dadban dhammaystirka dastuurka tirakoobkii ansixintiisa dastuurka dambe oo lagu dhaqmahayo oo ay noqoto 4 sano markii ay dhammaato ka hor in diyaar u yahay waddanka Soomaaliyeed one man one vote inuu diyaar u noqdo hawshaas baa hadda weyn waxaa garab socda masiibo dabiici ah oo abaaraha hadda taagan oo culayskooda leh oo intaasoo dhan marka la isku daro aan ka culays yarayn baa hor yaalla arrintaasi marka waxay u baahan tahay horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala in lala kaashado ku talagal bay u baahan tahay qorshe arrintaas lagu gaaro in la dejiyay u baahan tahay dadkeedii in la helay u baahan tahay inuu awood u siiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo wax ka qaban kara arrinta noocaas oo waayo aragga oo khibradda u leh inay ka soo qayb galaan oo ay kala shaqeeyaan garbaha ka istaagaan oo uusan qaadan waddadii rag hore ay qaadeen oo ah in koox yar oo saaxiibaha ay isku koobto bahaladda dadka waayo aragga soo celintii dowladnimada Soomaaliya way waxa meesha yaalla maanta waxaan oran karnaa waxay la mid tahay qof dumar ah oo 14 jeer ilmihii ka soo halaabeen la rabo marka 15aad ilmo caafimaad qaba inay dhasho ilmahaasi waxay u baahan yihiin xanaano ilaalin dadaal daaweyn in lagu talagalo ayagoo caafimaad qaba siday u dhalan lahaayeen micnaheedu waxa weeye in ra'iisul wasaaraha soo socda waqtigiisa xileed markuu dhammaanayo dowlad Soomaaliyeed lugaheeda ku istaagtay dadka Soomaaliyeed ay helaan way ku naaloodaan runtii waxa weeye waayo arag fara badan oo iyo khubaro fara badan baa dadka Soomaaliyeed ku jirta daacad dad badan oo daacadnimada iyo Soomaalinimada ka go'antahay jira dad waxaa jira ka warqaba hawsha Soomaaliya biraatada Soomaaliya meesha ay ka soo bilaabatay iyo maanta meesha ay marayso arrintaasi waxay u baahan tahay ruux cadaaya waayo arag bay u baahan tahay waxay u baahan tahay daacadnimo bay u baahan tahay waxay u baahan tahay maaragtay aqoon bay u baahan tahay intaas oo dhan waxaa ka bixi kara ra'iisul wasaare aan fiirinayn group aan ka tirsanayn nooc kasta uu yahay ama group diineed ha noqdo ama group siyaasadeed ha noqde Soomaalinimada fiirinaya daacadnimo iyo hawlkarnimo danta guud kaliya indhaha ku hayay maskaxda runtii waxa weeyaan bahaladu hoggaanka kama soo harto ra'iisul wasaaruhu waa hawl fuliyaha golaha fulinta madaxda u ah waana kuwa laga sugayo dhammaan hawlaha Soomaaliya ay u baahan tahay inay qabtaan oo ku guuleystaan haddii dhaqaaqoodu ay noqdo mid raali geliya dadka Soomaaliyeed oo ay ku kalsoonaado ummadda Soomaaliyeed dhan way la shaqeynaysaa jeenka isku xirahaya waaye bahaladda
inkastoo madaxweyne uu yahay golayaasha dowladda xiriiryaheeda uu yahay masala golihii fulintu waa midka madaxweynihii baarlamaankii maamul goboleedyadii anigu dowlad goboleed ma odhanahayo magacaas waxaan soo jeedin lahaa in maamul goboleedyo laga dhigo waayo wixii xoogaa confuse bay noqdeen awoodahaas waxa weeye sina loo wada yaacaya xoogaa shaqadoodii weyna dhibtay kuwii horeeta ayaan khibrad ka soo qaadanay dowlado isgarab yaacaya madaxweyneyaal is ag fadhiya oo fara badan dadka soomaaliyeed wax faa'iido ay ku qabaan ma laha inay faa'id ku qabaan maahane caqabad bayba noqdeen dowladnimadii ku noqdeen marka arrimahaas waxaan rajaynayaa kuwa qaabkooda iyo habdhaqankooda intaba la bedelo ama sharciyan loo bedelo wax un laga qabto oo ay noqdaan qaabkii gobolladu u shaqayn jireen inay noqdaan aysan la noqon kuwa maaragtay garab ordaya dowladda federaalka marka waxaan rajaynayaa shaqooyinkaas oo dhan waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed waxay u ooman yihiin waa la yaqaanaa cadaalad iyo dowladnimo u ooman yihiin meeshii ay ka arkaan ama qofkii ay ka arkaan hoggaanka noocaas ah way garab istaagayaan wayna u fududaanaysaa hawsha haddii laakiin waxyaabihii hore oo soo noqon jiray cudurradii horeeto ay nagu yimaadaan ilaahay naguma keeno hadda xaaladdu waxay noqonaysaa waa ka sii darnaanaysaa intii hore